waxyaalaha tusaalaha ee keenay xafiiskan in la furo waxa kamid ah gabadha waxa muddo dacwadeeda socotay xafiiska gobolka Ooleyd dabadeedna maxay waanu soo qabanay iyadii gabadhaas waa Yemeniyad xaqna uma leh inay baasaboor naga qaadato waa Itoobiyaaniyad waxa weeye xaqna uma leh inay aan baasaboor Soomaaliya ay qaadato waa ku celinaya gabadha waxa weeye sawirka leh waa Itoobiyaanad dokumentiga halkan ay soo martay waxa ugu qoran inay tahay Soomaali xafiisku soo celiyay gabadhi baan u yeeray dadkii waday waxa cadaatay inay tahay Itoobiyaanad nagu markaa baasaboor xaq waxay ku leedahay dalka u dhalatay inay ka qaadato baasaboor taas waxay keentay in muddo xafiiska la isku haysto dad baa wada waxay oranayaan muxuu ahaydee waa Soomaali gabadhaas markaa waa Itoobiyaanad waxa weeye sharcigu ma ogola waana waxyaalaha aanu hadda u abuuray xafiiska waxa kaloo jira gabadhaas wada aragtaan waxa weeye gabadhaasi waa gabar British gabar Ingiriis weeye waxa la rabaa baasaboor Soomaali in la siiyo timo suurtageli karto waxa weeye iyadii waxay ku leedahay markii la kulmay anigu aabahayna waxa weeye waa Ingiriis hooyadayna waa bahal waa Soomaali Yemeniyad dad baa wado waxa la leeyahay baalkii waa waxyaalaha waqti badan anaga xafiiska naga lumiyay oo maamulka gobolka iyo degmada iyo xafiiskii maxaa immigration-ka oo maxaa ahayd sodaalka oo bixinay iyaduna waxa weeye waa gabadha maxaa cadaanka iyada gabadha ayaan baan ku wareejinay markii aan xal waa inaan u helaa qofka soo beesha ku nool ninka waxa weeye baasaboor buu doonay waa Tansaaniyaan waxyaalaha keenay xafiiska la furo bay ka mid tahay waa muuqaalkiisa Mubaarak buu la baxay Mubaarak Jaafar Mubaarak يعني magaciisa ilaahu karim buu la baxay waa Tansaaniyaan taas way waa waxa keenay markii aan maxay dhigtoodu waa in cid sahlata oo isirka raacda oo cadaysa oo warqadiisa matiin hadii la yiraahdo soo ka baxaya haduu Soomaaliya warqad baa la siinay baasaboorkiisa qaadanayo xafiis qofna dib u geysanayo maaha qofna muwaadinimadiisa ma qaadayo Soomaalinimadiisa ma qaadayo laakiin Soomaali ma tahay ha maxay waa la wareysanaya dabadna warqadda saaran Mubaarak waa Tansaaniyaan wada aragtaan foomka uu buuxiyay sagiiba life baanu soo helay dad baa u dacwoonayay waxay lahaayeen waa Soomaali waanu doonay waa soo qabtay waa la xiray anaga baasaboor nin Tansaaniyaan wada aragtaan muuqaalkiisa waana sababaha keenay maaha intaan kaliya xafiiska gobolka dhowr iyo 10 qof oo sidaas oo kala yaala marka wax kasta oo dacwad ama dhibtoodu badato waxaanu ku qasbanahay inaan xal u doono halkii aan u dooni lahayn wuxuu noqday in xafiiskan aan furo waxaanu jecel lahay uqaasha in dadka muwaadiniinta maxaa ahayd Soomaaliyeed halkan inuu ku imaanayo inaad u sahashaan inay qaataan baasaboorkooda